iska loo yaqaano Maxamuud Cismaan Bulxanna waxa uu noo soo eegay waraysigaasi sida uu dhacay. aad ayaan ugu faraxsanahay inaan arko horumarka uu gaaray dalka Djibouti dhinacyada dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo waliba kor u qaadida ciyaaraha xiriirka kubadda gacanta ee tenniska dalka Djibouti si wanaagsan ay halkan igu soo dhaweeyeen waxaan ka wada hadalnay sidii kor loogu qaadi lahaa garoomada lagu ciyaaro ciyaarta tenniska waxa ay diyaar u yihiin xukuumadda Djibouti iyo xiriirka tenniska waxa ka go'an sidii kor loogu qaadi lahaa tenniska waana mid ka qayb qaadanaysa doonta horumarka dalka uu ka gaaray tenniska waa mid ciyaar kali lagu ciyaaro waa ciyaar ka qayb qaadanaysa nabadda iyo isdhexgalka dhalinyarada marka shirkado ay yimaadaan waxay ka qayb qaadan doontaa inay maalgelin ku sameeyaan ciyaarta tenniska kor ayayna u soo qaadi doonaan waana mustaqbalka dal walba uu leeyahay qaasatan wadamada Afrika haddii aan ka hadlo Afrika waxa ay u baahan tahay dhalinyaro wanaagsan oo jecel ciyaarta tenniska oo ka qayb qaadanaysa horumarka dalka ka jira midka tenniska iyo waliba midka kale ee sportiga walaalkay Xumad gudoomiyaha xiriirka ciyaarta tenniska waxa uu ka shaqeeyaa sidii kor loogu qaadi lahaa tenniska isaga iyo dhammaan asxaabta kale waxay diyaar u yihiin inay ka shaqeeyaan sidii kor loogu qaadi lahaa tenniska Djibouti ciyaaraha tenniska waxa ay noqdaan ciyaaro aad loogu xiran yahay oo dad badan ay daawadaan ayna xiiseeyaan waxa loo baahan yahay in hibada dhalinyarada la soo bandhigo waxayna dhalinyarada ku dhex jiraan bulshada ciyaaraha Olombikada ee ka dhacay Rio de Janeiro dalka Brazil waxa ay heshay bilado badan qaaradda Afrika oo ka mid ah ciyaaraha kaliga loo ciyaaray waa inaan si wadna taageerada aan la garab joogno dhalinyaradeenna kuwa ciyaaraha isku duubnida loo ciyaaro ma aha inaan ilowno ciyaarta kali loo ciyaaro ay ka mid tahay ciyaarta tennis